al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxii xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee lagu bartilmaameedsaday xildhibaanad aamine maxamed cabdi laakiin arrinta jawaabta loo raadinayo oo tuhunka gelinaysa ehelka iyo bulshada kaleba waa sababta keligeed uu naftii halliguhu u sugaayey isagoo heli karay xildhibaanno kale oo goobta ku sugnaa kiiska aamine maxamed cabdi aad ayuu uga culus yahay sida fudud ee loo akhrinaya ayay leeyihiin dhinacyada amnigu ma jira adduunkan qof la yaqaana cadowgiisa ama la og yahay cidda ay ishayaan in si fudud loo wasiir waxaan ku weydiinayaa arrintii gobolka banaadir ka dhacdadii musiibadii aadka u dhibka badnayd uu ku dhintay guddoomiyihii gobolka iyo duqi magaalada 3 guddoomiye degmo iyo 9 agaasime qaraxa dhacayna uu ahaa mid aanan yani miino loo dhigayna ahayn guri la soo jabiyana aan ahayn oo xafiiska ka dhacay dhacdadaas waxay ku dhamaatay sidii dhacdooyinka hore kaleeto Allah u naxariisto guddoomiye gobol la magacaabo xagee ku dambeysay arrintaas kiiskaas intuu maray waxaan rabnaa ka xildhibaan ahaan inaan ogaano arrintaas meesha ay ku dambeysay waxyaabo kaleeto la qarinaayana inaysan dhici doonin sida hadda qaasan kuula wadaaga ay dhacayso kale inaysan dhicin dadkan waa dhinteen soo ma noqonayaan kiiskaas meeshuu ka bilowdo siday ku dhaceen arrintaas aad ay muhiim noogu tahay maadaama aan hay-ad ahaanna aydan u soo gudbinin ama ka wasaarad ahaan taliyaha booliiska waxaan rabaa arrin asagana ka horreysay ilaa ay haddana socoto inaan asagana su'aal ka weydiiyo oo ay ka mid tahay bajaajlayda maalin kasta bilaa micnada lagu dhammaynayo ciidankeennii booliiska soomaaliyeed ee waddooyinka taagnaa la rabay dadka inay ilaaliyaan taliya booliis dadku waa laayaan waa dilaan bilaa sababayna ku dilaan waxaan rabnaa arrintaas maxaa kaaga yaalo hortaana way dhici jirtay haddana way dhacdaa 4 biloodoo lasoo dhaafay 3 ilaa 4 bajaajla la dilay waxay la mid tahay marka maalin bil kasta in hal nin la dilo oo bajaajla ah oo yani uuna dilo ciidankii booliiska Soomaaliyeed qayb ka mid ah waxaa kaloo jirto taliya xijaar waxyaabo badan oo lagu soo eedeeyay oo aan goob joogna u ahaa qaarkood oo ay ka mid ahaayeen xushmad darro iyo tixgelin la'aan xafiiskiisa lagala kulmo qaasatan mas'uuliyiinta waxaa kaloo jirta taliya xijaar arrimo oo ay ka mid tahay isticmaal awood iyo ku tagrifal sharciga xaggiisa uu ku tagrifalayo qaasatan saraakiisha oo aan asagoon habraac iyo ciqaabeed saxa u marin ama iska xiro ama uu si ay diida ku dacweeyay waxaan rabnaa inaa arrintaas nooga jawaabtid taliye waxyaabihii sababay iyo siday ku dhacday arrinta xushmad la'aantana ma dabeecaday ka tahay iyo dhaqan mase dad gaar ah oo aad ugu dal leedahay ayaa jirta xushmad darradaas amaansanta marxuumad aamino oo loolan adag oo siyaasiya uu kala dhaxeeyey farmaajo fahad yaasiin iyo kooxdooda ayaa asbuuca mar la isku dayay in kursiga laga xoogo waxaa la soo saaray guddi la sheegay inay xulayaan ergada kursiga hob 135 oo aamino ku fadhisay guddiga waxaa loo qoray musharaxii ay wadatay filla Soomaaliya laakiin arrintaas waxaa si weyn uga hor yimid hogaamiyaha maamulka Hirshabelle cali cabdullaahi xuseen guulaawe oo warqaddii kansalay sidoo kalena xilkii guddoomiyaha iyo xubinnimadiiba ka qaaday guddoomiyihii guddiga doorashada maamulka Hirshabelle kaasoo lagu eedeeyey inay filla Soomaaliya u dirsatay shaqadan wixii markaas ka dambeeyey xaalka kursigu dhinaca aamina ayuu jiray wararku waxay sheegayaan in 24 saac ka hor inta aan xalay aamina la dilin in kursiga la siiyey oo ay dabaaldeg ku jirtay waana sababta ay dadku badi isugu xirayaan dilkeeda iyo kursiga siyaasadda Soomaaliya wax walba ayaa macquul ah markii koonfurta Soomaaliya la joogana shaki badan ayaa laga qabaa nuuca cilaaqaad ee ka dhaxeeya awoodaha hubaysan allaha u naxariistee xildhibaanad aamine maxamed cabdi tan iyo bishii Julaay ee sanadkii la soo dhaafay waxay bannaanka u taagneed xaq u raadinta gabadha niise lagu tuhmay ee Igraan Tahliil Faarax waxay meel fagaaraha ka sheegtay intii ay nooleed in mar dhow iyo waqti fog midii ay noqotaba in kiiska Igraan Tahliil wax laga weydiin doono Fahad Yaasiin taliyihii hore Nisa tan iyo markii ay xildhibaanad aamina u dhaqaaqday kiiskan qof walba ayaa dareensanaa inay wajihi karto jawaab adag waana sabab kale oo iyana xoojinaysa
tuhunka dadweynuhu ka qabaan dilkan. yaa dilay iyo maxaa loo dilay waa laba arrin oo kala duwan. al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxii xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee lagu bartilmaameedsaday xildhibaanad aamine maxamed cabdi, laakiin arrinta jawaabta loo raadinayo oo tuhunka gelinaysa ehelka iyo bulshada kaleba waa sababta keligeed uu naftiihalliguhu u sugaayey isagoo heli karay xildhibaanno kale oo goobta ku sugnaa. kiiska aamine maxamed cabdi aad ayuu uga culus yahay sida fudud ee loo akhrinaya ayay leeyihiin dhinacyada amnigu. ma jira adduunkan qof la yaqaana cadowgiisa ama la og yahay cidda ay ishayaan in si fudud loo soo koobo nuqulka dilkiisa. madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay xildhibaanad aamino xisbigiisa ka tirsanayd wuxuu sheegay inaan weerarkii aamino lagu tilmaami karin mid argagixiso. wuxuu sheegay in duulaankii garoonka aadan cadde ee shalay iyo midkii xalay aamino lagu dilay in labadaba laga lahaa ujeeddo gooni ah. wuxuu soo jeediyey xasan sheekh in loo baahan yahay baaris caalami ah oo madax bannaan oo labadaas kiis ku saabsan, taasoo sii xoojinaysa tuhunka laga qabo dhinacyada qaar. ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo isna falkii aamino lagu dilay ka hadlay wuxuu isku xidhay dantii laga lahaa weerarkii shalay ee garoonka aadan cadde iyo midkii xalay lagu qaarijiyey xildhibaanad aamino, isagoo wacad ku maray inaanay taasi ka leexin doonin dhabbaha doorashada. hoggaamiyihii hore ee maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo ka hadlay dilka xildhibaanad aamino ayaa si toosa farta ugu fiiqay filla Soomaaliya oo uu sheegay inay ka dambayso. aamino oo la filaayey inay kursigeeda soo qaadato si ay u sii waddo doodda Igraan Tahliil Faarax, hadda iyada ayaa u baahan in dooddeeda la qaado. lamana oga sida ay labadaasi kiis u saamayn doonaan mustaqbalka siyaasiga ah ee dadka la tuhunsan yahay ama xaaladda guud ee dalka. allaha u naxariisto xildhibaanad aamine maxamed cabdi.